Shams oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday garoonka Istanbul ee dalkaasi Turkiga xilli ay transit ku ahayd halkaasi iyadoo u socotay magaalada Muqdisho ayaa dhaawaceeda hadda waxa lagu daweynayaa isbitaal ku yaala magaalada Istanbul. Salman Jamal Saeed ayaa warkaasi ka soo diray Istanbul. Shamso Maxamed Cabdulaahi waa hooyo Soomaaliyeed oo dhaawac ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday garoonka Ataturk ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga habeen hore. Shamso Maxamed waxa ay transit ay ku ahayd garoonka xilligii uu weerarka u dhacayay, waxayna u safraysay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Lugta ayaa dhaawac ka soo gaaray kadib markii dadkii ay isbuurteen iyadoo jaranjaro ka dhacday. Xilligani waxa lagu baxnaaninayaa isbitaalka lagu magacaabo Bachelor. waxa ayna iga warantay xaalkeeda sida uu yahay. ay gabar oo ka timaaday Canada waxaan transit ku ahaa airportka Turkish marka habeenkii aan baxaynay alaabta markaan xariisanaynay oo maaragtay aan marnay bookingka maxayto alaabta la wada xariir boorsooyinkii waxa dhacday in oo maaragtay terror attack uu la soo aaday dhinaceena asigoo wato gun machine wuu soo furay intuu soo socday waxaan isku jirnay dhowr talaabo 12 talaabo meelahaas camal aan isku jirnay xabadii wuxuu bilaabay inuu furo markaan arkay anigana aan ku jiray meesha security-ga oo gacmaha la taagayo markaan arkay inuu noo soo socdo gabadhii aniga ijeegaraynaysa iyo anigaba waa cararkan cararnay waxaan ku tagnay meel oo maaragtay derbi ah derbigii waan soo celiyay haddana meel kale haddana ku cararnay waa kufay jilibkana waxay ga gaareen haddana waa sii baxnay banaankaan u cararnay stiil ninka xabadihii warida banaanka markaan u baxnayna bam ayaa dhacay oo banaanku haddana bamkii ka qarxay haddaba alxamdulillaah shukri dhaawacan yarkaa soo gaaray maanta hadda waa fiican alxamdulillaah shukri waxaan u socday Soomaaliya oo hooyaday intaas oo sana aan arkin inaan soo booqdo laakiin nasiib darro dhibka yarkaa ha dhacay alxamdulillaah shukri haddana waxaan sii jecelahay inaan safarkayga sii dhameystiro. qadro waxa ay safarka ay ku weelisay walaasheeda Shamso waxayna ka timid dalka Jarmalka xabadihii koowaad markii ay bilaabmeen waxa ku dhacay shooga muddo 24 saac ayaa waxay kala maqnaayeen walaasheeda Shamso dareenkeeda iyo xilligaasi ayay iga sheekaysay. iyo walaashay waxaan ahayn dad musaafir ah oo Soomaaliya u socdo walaashay 88 Soomaali ugu dambeysay aan waxaan rabay inaan hooyaday soo wada salaano oo ciid la soo qaadano marka waxaan la kulannay Istanbul qarxi ka dhacay annagoo ku jirna meesha controlka marka aniga iyo walaashay markii ninka uu meesha soo galay xabadaha markuu bilaabay walaashay way carartay anna meesha baan istaagay waxaan ku noqday shock waan ka dhaqaaqi waayay ilaahay amarkiisa xabadihii korkaygu ka ridaayay marka walaashay iyo dadkii meeshay ku carareen ayuu xabadihii la aaday aniga uu ilaahay waa iga badbaadiyay wax igaaray ma laha laakiin nasiib darrada igu dhacda waxay ahayd habeen iyo maalin waxaan weysanaa walaashay nolol iyo geeri ayadana sidaas oo kale ayay ii weysanayd sidaas marka walaashay isbitaalkan ugu helnay waxa ay caawiyay wiil yar oo Soomaali ah oo arday oo jaamacad inta ka dhigto oo mahad la yiraahdo oo haddaba ila joogo marka waxay kale ay caawiyay Salman Saeed iyo Hashim oo dad walaalo Soomaaliyeed ah. ururka lagu magacaabo codka Soomaalida ee Somali Voice ayaa wax badan u fududeeyay Shamso iyo Qadro lana socday xaaladoodii caafimaad iyagoo turjumaano luqadaha Turkiga iyo afka Soomaaliga ha u diray Shamso iyo Qadro kuwaas oo xitaa isbitaalka la seexanayay. Hashim Cabdulaahi waa gudoomiyaha ururka Somali Voice. Mama Shamso iyo Mama Qadro oo ahaa dadkii wax ku soo joogeen garoonka markii waxay dhacayeen alxamdulillah maamada waxay lugta wax ka soo gaaray hadda caafimaadkeedu uu fiican yahay. Mama Qadro markaas oo iyadoo walwalsan aan wada kulmna hadda maanta inay ka fiican tahay waxaan rajaynaynaa inay caafimaad taam helo waalidkoodana booqdaan sida hadda waxay u socdaan Soomaaliya waxaan leenahay ilaahay ha caafiyo community ahaan inta waxaan u soo booqanay inaan ka qayb qaadano dhibaatada haysato wixii karaankeena aan ka geysan karno ducaa iyo dhan waliba diyaar aan leenahay. سلمان جمال سعيد TV عالمي يونيفرسال مقالة اسطنبول.